Assalaamu calaykum walaalahayga qaaliga ee ku xiran kanaalkayga caafimaad channel. Soo dhawaada gacmo furan, niyad saafi ah. Fadlan hadday tahay markii kuugu horeysay soo booqato, waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad saarto subscribe-ka, gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha koowaad ee daawada fiidiyowyadayda. Haddaa horey iila joogto waa mahadsantahay. Soo dhawow, like, share iyo comment waa dhankeena. Haddaba maanta maxay idin wadaa caafimaad channel? Waxaan idin wadaa maanta barnaamij aad xasaasi u ah, muhiimna u ah gabar kasta inuu ogaato, xitaa wiil kasta inuu ogaado si uga faa'iideeyo walaashiis uuna ugu share gareeyo. Insha Allah la socod wanaagsan. Barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay caadada haweenka. Run ahaantii caadada waxaa jira gabdho badan oo aad ugu xanuunsado, aadna ugu dhibtoodo. Waxaan idin wadaa maanta qodobo fudud oo qof walba sameyn karo uuna awoodi karo, oo hadduu sameeyo qofka xanuunka caadada asoon daawo isticmaalin uu ka joogsanayo. Qodobka koowaad, waxaad soo qaadanaysaa galaas biyo qandac ah ayaa soo qaadanaysaa. Markaad galaas biyo qandac soo qaadato ama shaah ahaado, qandac inuu ahaado wax zaid u kulul lama rabo, ha isgubin. Markaad soo qaadato waxaad saaraysaa meesha shuunka ka koreyso ayaad saas u saaraysaa insha Allah ilaa iyo muddo dhan 10 daqiiqo ayaad sidaas sameynaysaa. Waxaan rajaynayaa xanuunka inuu kaa degi doono ama uu kaa joogsan doono. Sidoo kale waxaad sameynaysaa saliid allaali saliid haysatid, haddii ahaan lahayd olive oil, saliid macsaro, yacni saliid haysatid ayaa soo qaadaysaa. Waxaad marinaysaa meesha ku xanuunayso, waa meesha caadada dadka xanuunto, gabdhaha ayaa fahmayo. Insha Allah meeshas marka aad mariso waxaad sameynaysaa, waxaad ku daldaliigaysaa gacantaada iyadana muddo dhan 10 daqiiqo. Insha Allah labadaas arin haddaa sameyso xanuunka caadada wuu kaa fuqayaa. Haddii jirto gabar caadada aad ugu xanuunsato ood garanayso, u share garay si ay uga faa'iideysato. Waa mahadsantihiin walaalihii qaaliga.